aniga marka masayrka waxaan ku maareeyaa mar walbaba qofku inuu ogaado koow adduunyadu inay imtixaan tahay labo waxaan lagu qoray inayna marna ayna suurtagal ay tahay inaadan gafaynin waa saddex inaad ku raali noqoto qadaha iyo qadarka alle gabadh waxaa jirtay ummu axmed la yidhaahdo qaarkiin haddaad daawateen mawduuca la yidhaahdo maaraynta masayrka qof daawada midin ku jira qof mawduuca arki midin ku jira gabadha ummu axmed baa la yidhaahdaa waxaan kula kulmay waddanka Canada Toronto masjidka niman sheekh oo saaxiibana nahay la yidhaahdo sheekh Saciid Raage oo Sakiine la yidhaahdo gabadha waxay tiri sheekh hebel baan la kulmay sheekh hebel waan la kulmay sheekh hebel waan la kulmay waxaan rabay waan ka waayay Abu Talha oo adigaan ku sugayay haddii ilaahay maanta ii ka keenay waxaan rabaa mawduucaas inaan anigii adiga meel saaro waxba kama qabaan ku hor ilaahay baan u istikhaaraysanayaa sheekh Saciid Raagi iyo culimo kale la joogay gabadha ummu axmed baa la yiraahdaa waxaan ku hor ummu axmeday ninkaagu magicii si fiican u fiirsada gabdhaha masayrka badan baa la hadlayaa waxay tiri waxaa la yiraahdaa Ahmed inaad isguursanaysaan goormaad ogaati waxay tiri de markaanu wada sheekaysanay oo de heshiinay marka waxaan ku hori miskiin oo hore omaad ogaanin miya markaasay tiri maya ma ogeyn ma taqaanaa goortu ilaahay ogaaday in gabadha lagula guursan doono markaasay tiri kollaba ilaahay wuu ogaa laakiin waqtigay tahay ma aqaano samana lama abuurin 7 samo 7 dhul lama abuurin baan ku hori haye su'aalahan soo socda ka jawaab lawxul maxfuudka inaad kaliga ku qorayd iyo inay gabar kale kula qorantay mid saddexaad iyo mid afraad may xaqiijin kartaa hadii idinka ay weydiiyeen gabar garan karto oo xaqiijin karta ma jirtaa lawxul maxfuudka inay kaligeed ku taalo iyo in agteeda lagu yaalo qof sheekay kar ma jira okay qofka dhaha waan ogahay wuxuu noqonayaa قال لي ده واحد لو عذر ديار سما ويغيب وشك سما قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون سوره الاعراف غيب كعدنا الله مؤغو انبيادنا انتو الهي اوغيسيون بكوغي صصصما حقيقه النواسا وبالقدر المقدور ايقن فانه دعامه عقد الدين والدين افيحه اما الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله وحو اوغاده waxa dhacay waxa dhici doona waxa ayna suurtagal ahayn inay dhacdo haday dhiclayso u dhiclayd idan lahul mahfuudka wax ku garaya lama taqaanid ko su'aal kale aan gabadha weydiiyay idinkan hadda idin weydiinayo ma waxaad isleedahay ها ويقول قرب قريده ظلم يقدر اللي هو قري ما ديكرتا هايدا ما حوارك قبل هذه سو غورني عجلد وي دوبان تاي مارنت مصيرك كو قرارك سون تاي الهي waa caadil soma ma waxaad leedahay mar saddexaad xigmad anigu xigmad baa la igu qoray ayadana xigmad la'aan baa loogu qoray ma dhigartaa ayadana waa maya ma waxaad leedahay wixii la ii qoray inuu ilaahay fuliyo markii ani la iga fiiriyo sax buu ku ahaa laakiin ayada inuu fuliyo sax ma ahin miyaad leedahay ma dhigartaa ayadana waa maya inta markaan marayo gabadhu way oyday sheekadan halkii ku dhamaatay halka anigu waxaan u bixiyaa maaraynta masayrka marka gabadh walba ay alfaada xusuuso waxaan ku khatimay qodob aad muhiim u ah gabadh baa jirtay gabadh baa la qabay 4 ilmood ilaahay siiyay 3 socoto mid uurka ku jira gabadhan kale ilaahay awlaad ma siinin maalinta dambe way ku jeestay ayadoo de dhinacna ka masayrsan waxay tahay wax yahay ma dhashada ah bal u fiirsa aniga laba ay hor socota midna midug bay la socdaa midna caloosha kugu jira adu ma hadaysaa caruurta ma ilaahay baa bixiyay mise anaga bixina
ilaahay baa bixiye ilaahay wuxuu qadaray afartii ilmoodba inuu ilaahay gabadhii uu mid oga dilo ayaduna ay 2 sano gudaheed ay midba ay 2 mataana dhasho kadib intay xanuunsato cidda xanaanaynaysa ay ayadii noqoto adu ma garanaysa gabadhan lagu la qabeen sakaraadka teed gam ilaadahay timihii ka buubeen ma garanaysa inuu khayr kuugu jiray in kala shaydaanka taas ka naartaan hal qaacidana waa idin siinaya caawa hal arrin baa idin siinaya intaan hadda Nairobi joogayna hadda Canada meesha la yiraahdo Australia ilaa meesha la yiraahdo maxaa la yiraahdaa wadankan dheerta Malaysia inta badan soo maray qaacidadaas aad baan ugu celceliyay intaan noolahay waan ku celcelin doonaa way aanay anfacday sax qaacida waxay leedahay han noqdo waxa ugu horeeya ee naftaada ugu sheekayso ani maxaa lagu leeyahay war ma la fahmay ani maxaa lagu leeyahay inta ku mashquul way intaas aakhir la weydiin doonaa ama maxaan ku leeyahay waa mid caafin kartaa ama waa la wasiin karaa ama aakhir kaaga horeysa sida daradeed waxaan rabaa inaan dhaho wixii adil lagu leeyahay ka soo bax ninkaagu un adu kasbo ma maqasheen gabadhii intay u tagtay nin xakiima ku tiri waxaan doonayaa inaan noqdo magaaladan Nairobi ka soo qaad gabadha loogu jecel yahay ee ninkeedu ugu jecel yahay qalbigii baan ka hadlayaa Soomaha inaan noqdaan doonayaa Soomaha Xasan kadibna wuxuu ku yiri aan shaqadeedii weeye waxaas ana ku sheegayay sixir ramaya libax 9 xabbo oo tima garkiisa ka soo go waxay tiri libax dadku cunaay ha ii dirina wax kala sheeg ma yiri marta ninkaagu inuu ku jeclaadaha 9 xabbo oo tima ama 10 xabbo ninka garkiisa ka soo go ee maxaa la yiraahdaa libax gabadhi way baxday waxay la tashatay dadkii yaqaanay xayawaanka sida loola dhaqmo libax waxa loo sheegay hal arin baad libax ku saaxiibi kartaan hilib aribay neefqasha way u dhigtaa uu cunaa sagaaray dishaa way u dhigtaa garnuug bidishaa goodir bidishaa adiga gabadhi mudday ku qaadatay illa libaaxi uu aaminay gabadhi oo marka dambe horta asoo halka fadhiyo hortiisa u dhigay illa marka dambe markuu dharga intay u tagtay halkaas timaha ay ka salaaxdo indhaha markuu isu qabtana xabad gas ay ka soo siisato 9kii ama 10kii xaba markay soo heshay ayay iyadoo de faraxsan oo ordaysa ninkii u timid waxay tiri adeer 10kii xaba waa kuwan xiri warba adaha yeeseed ku soo heshay maxaa samaysay libaax dadku cuna way u sheegtay wuxuu yiri ninkaagu horta libaax ya kama adko libaax waxaad kula saaxiibtay soo uun ma aha hilib Soomaa ninkaaga caloosh u buuxi bas خلاص waa dhamaatay waliga yusaka kale ninkaago ya gaajaysa hada gabadha kale lagu la qabay markuu ay saaka soo dhirgiso adigana soo sakarada aad dirto maxaad sugi ma soo xiisaya gurigaaga okay markii gabadha lagu la qabay qosol iyo muusood iyo dhool cadeyn iyo alaabta aan sheegayay la isku darayay ay ku qaabisho adigana dharkii maxaa la baatigii basashaad kaga hortagto adoo waliba qaylayo ayaada ku haya guriga marka sii galaysa 2 bacbaad waday anaga hal bacbaad wadaa bacda kale maxaa ku jiray iga sheekay adu baa rafaadi dhiikar baa kugu dhici cholesterol baa kugu dhici hurdada ka tagi timaha ka buubi cirra ka soo bixi adigoo yar kadibna waxa weeyaan khalaas baradi hurdadu ka tagtaa waa kugu dhamaat adu baa rafaadi ana marka wax fiican baa idin haya qadarka ilaahay inta ku kalsoonaataan adduunyada waa 4 bari ilaahay caabuda war ma garateen ilaahina caabuda ragaan waqti badan ku bixinayna xaqiisasi ilaahay caabud xaqiisasi ilaahay caabud xaqiisasi ilaahay caabud geerida waa ku iman laakiin jannad ku guuleysanaysa saas ma